sanadka 2025 wuxuu curtay Soomaalida oo isdilaysa dhiiggeedu xalaal isku yahay 61% gobolada dalkana ay ka aloosan yihiin colaado sokeeye maanta gees ilaa ka gees dalka oo dhan waxaa isqabsaday qiica qabyaaladda gumaca baaruudda iyo daryanka rasaasta guri kasta waxaa gashay geerida iyo dhiilada colaadda gabdhihiina waxaa madaxa u saaran gambada asayda dagaal sokeeye dooni mayno 2024 wuxuu idlaaday iyadoo ciidankii qaranka qabiil ahaan loo leynayo haweenkii iyo carruurtii la dooxay guurtidii nabadda iyo culimmadii diintana seefta laga aslay waa zaman xumaad damiirkii ummadnimo dhintay dhaqankii bololay diin iyo darisnimo aan midna la xeerin hoggaan iyo dawlad dadka kala celisana lahayn madaxweyne xasan sheekh oo loo doortay isku haynta dalkan dagaalada sokeeye halakayeen iyo dadkan dib u heshiisiinta u baahan waxay ahayd inuu calansida u noqdo dadaalada nabadda hase yeeshee sida muuqata danihiisa gaarka ayuu ka raacday sanadka dhammaaday wuxuu ahaa sanad haddii la helo hoggaan aragti iyo hal abuur leh si fudud loo jihayn karay dadka maadaama Itoobiya oo shacabka Soomaaliyeed u arkaan cadow soo jireen ah ay ku soo duushay madax bannaanida iyo midnimada dalkeena damacna ka galay biyaha baddeena Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la madaxweyne waxaad horay shicaar iyo halkudhig kaga dhigatay Soomaali heshiis ah hadda 2 sano iyo 8 bilood ayaad xilka haysaa bal dib u qiimeey Soomaali heshiis ma tahay dalku wuxuu degdeg ugu baahan yahay hoggaan bulshada u abuura rajo una tilmaamo mustaqbal ifaya hoggaan dib u soo celiya ruuxda dawladnimo ee sii dhimanaysa hoggaan aan ka macaashin xiisadaha colaadeed iyo xasaradaha qabiilka shacabku waxay dhowrayaan hoggaan aan xooladoon ahayn oo daacadnimo ugu adeega qaranka wasiirkoo soo bax madaxweynuhu soo bax war annagaa ku jir weyn guriyihii oo xil hayn adigoo xil lahaa ayaa mukayfo ku fadhiisiin dagaalka Soomaaliya hala joojiyo